السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أقيات يوتيوب أنا سلامي عشر كان ما أنتو حكو سابسي يعني سيدا استعمالين سلايس تول فوتوشوب CS5 عشر دا مركا waxaa loogu talagalay dadka bilowga oo photoshop kana aan wali hore aan u isticmaalin in ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah bidnillahi kariim marka photoshop kaaga fur marka aniga hadda waxaan sameynay in aan website yar iska been aan sameynay muhiimadan waxay tahay sida loo isticmaalo slice tool waa muhiimadeena ma ahan muhiimadeena inaan website sameyno ma ahan marka right click ayaad ku leedahay meeshan crop tool ayuu jeedaa oo ku xiga slice tool markaas soo dooratid waxa maanaysa meeshan panelka dushiisa ayaa maanaysa waa ku dul jiidaysaa calaamada marka waxa arkaysaa in aad dooratay panelkii macnaha waa website-ka fawqiisa macnaha ama sawirka adiga markaas aad rabtay markii aan falaarta aan weynayo waxaad u jeedaa meeshan in banaanka u baxsan yahay waxyara dhinac u yar u celinaysaa macnaha muhiimaddu waxay tahay slice tool waxyaabo loo isticmaalo xitaa website-ka ayaa badanaa lagu habeeyaa oona lagu qaada sawirdiisa hadda kan dhinacan kalarkan dhammaan rabaa inaan wada qaado waa ku jiidaa dhag waa ku sii daayay marka meelaha bannaan waa inaad iska ilaalisaa kale hadda professional website namaanan nihin laakiin macnaha waxaan ka wadnaa untusa marka hadda waa wadnaa laakiin waxaa noo dhiman in aan magac u yeelno noo dhiman kaasna waxaa waaye right container sida website-da magacyadooda inta badan lagu magacaabo kana footer ay dhahaan isla markaas soo dhammeeno double click ku dul siinaysaa ama double click haddii aad markaas oo kale aad double click ku sii karto waa gooni haddii kale waxaad sameynaysaa right click ku dul leedahay waxaa ka doonaysaa edit slice option kadib sidan ayaa ku soo baxayso magac u sameyso ana waxaan leenahay footer sorry double o waa laga rabaa meeshaas kadibna okay dheh kana right click ku dheh ka dooro edit slice tool kadibna name kimo waxaa ku qorsaa adiga markaas waxaad magacaada u sameysan kartaa laakiin aan hadda waxyaabahan ku kala garanayo ayaan ugu talagalay container kadibna okay dheh sababtoo insha Allah waxay noqon doontaan dad sameeyo insha Allah biidnilka mustaqbalka inay website ka sameeyaan kale right click dheh in addition and edit selecting kana waxaan dhahdaa lefty content kadibna okay dheh kadib kor yar u yara kac right click inta ku dheh kadibna waxaan dhahdaa edit kadibna waxaan dhahdaa meeshan pana ku dheh kadibna okay ka dooro isla markiina waxaa noo haray adiga doorashadii sidaa u dooran lahayd way ku diyaarsan tahay oo wax dhiba ma lahan kadibna waxyaraan dib u celinaa marka hadda waxaa noo dhiman bis in aniga macnaha adiga muhiimadu waxay tahay macnaha markii oo website ka sameynayay wuxuu notice way hadhihin macnaha cashirka dadka waxaa loogu talagalay bilowga in ay ka faa'iideystaan insha Allah biidnillahi kariim kadibna kor yar u yara qaad minta hoose imo waxyaar kor u qaad kadibna meeshaan kali right click ku dheh kadibna edit slice option kadibna meeshaas waxaa ku qortaa adiga waxaadii markaas rabtid ku qor laakiin annaga waxaan ku qoranaa pg oo background kadib markaa wixii dhammeeno waxaan tegaynaa file menu kadibna waxaan tegaynaa save for website ayaan tegaynaa and devices markii sidaan kugu soo baxdo waxyaar kor u qaad waxaad ujeedaa meesha ugu hooseyso inay ku qoran tahay save cancel and done save dheh
kadibna meeshaas waxa laga rabaa inaad ka dhigatid wax adiga aad rabtid inaad u samaysatid inaan u samaysano kadibna meeshaas waxa laga rabaa inaad ka dooratid html and image sida macnaha sawiro aan u samaysano macnaha sawiraas saan u jarjarnay waa inaan u aragnaa ma fahantay muhiimadana waa taas haddii aad folder ku diyaarsanina folderka diyaarso hadeer folderka kadibna folderka sii dhaaf kadibna folderka magac u sameey 67 u bixinay double click sii fur kadibna wixii magacyada waa diyaarsanay website html and image kadib save wixii marka waa noo diyaariyay maxaan ku fahmaynaa iska soo dhig marka sidaan u fiirino waxaan furaynaa meeshaan ku qoran tahay folderkii koowaad aan ku dhex sameeyay kadibna waxaan kasii dooranaynaa 67 folderkaas isla markii waa ujeedaa website-kii aan soo sameynay intana waxaa ku jira sawiradii marka aan furno markaan weyneyno sida si fiican loo arko marka meesha waxaa ujeedaa kan maxaa ku qornay waa ujeedaa panel ayaa ku qoran waxaa ku xigo pg footer ku xigo left container right container ku xigo space email barnaamijkaas iyo website-yadii emailii kaas ka banaana asaa u sameynayo dhiman ahaan marka sawiro hagaajisay sidee ku ogaanaysaa inay sawiro wanaagsan yihiin oo aad diyaarisay background kadibna website-kan double click ku sii oo ku diyaarsan marka fiiri waa ujeedaa sawirkii intaad fiirisid waxay ku qoran desktop and UI folderkii oo ahay 67 website.html marka sawirii aan jarjarnay intaan isugu imaanayn sawir kastana gooni ayuu u shaqeynaa marka cashirkeena muhiimaddu waa intaas inuu macnaha slides tools u shaqeynayo waa muhiim marka qofka professional website noqon doono ayaa aad u isticmaali doono fahmi doono marka insha Allah biidnillahi kariim inaan ka faa'iideysan doontaan ayaan rajaynayaa sidoo nabigeena sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama al-ilma wa 'allamahu وهدنا هاي غيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا